degmada Kaaraan waxa ay ka mid tahay degmooyinka ku teedsan xeebta Xamar. shirkadda horumarinta dhulka iyo guriyeynta ee Marina Beach ayaa ka hirgelinaysa xaafad cusub oo loo dhisayo qaab casri ah. dhismaha xaafadan oo ay maalgashanayaan ganacsato Soomaaliyeed ayaa ka kooban qaybo kala duwan oo muhiim u ah deegaanka, waxayna shirkaddu diyaarisay meel aad u ballaaran oo ka kooban guryaha, hoyga, ganacsiga, goobaha waxbarashada iyo cibaadada, suuq iyo goobo lagu nasto. xaafadan cusub ee sida casriga ah loo dhisayo ayaa waxay muuqaallo cusub soo jiidasho leh u samayn doontaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan iyadoo yeelan doonto qurux dheeraad ah marka dusha laga sawiro. marti sharaf kala duwan ayaa ka soo qayb galay xafladda dhagaxdhigga Marina Beach, waxaana ka soo qayb galay haween, dhalinyaro, culimaa u diin, siyaasiyiin, ganacsato, madaxda dhaqanka uu hogaaminayay Imaam Maxamed Yuusuf, madaxa rugta ganacsiga uu ugu horeeyo gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabayre, xildhibaanada labada gole, wasiiro, ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cali Maxamed Geedi iyo duqa Muqdisho. gudoomiyaha Marina Beach State Marwolino Xasan Maxamed Saalax oo furtay xafladda ayaa sheegtay in wejiga koowaad ee dhismaha uu ka koobnaan doono 300 oo guri oo isugu jira villooyin iyo guryaha la isdul saaray. maanta waxaan dhagax dhignay wejigiisii ugu horeeyay ama wejiga koowaad. wejiga koowaad haddii aan wax idinkaaga sheego wuxuu ka koobnaan doonaa 300 oo guri. 172 ka mid ah waxay noqonayaan villooyinka gaaban looguna waqlali doono guryo samo. 128na waxay noqon doonaan guryo iskor saaran ama guri G+1 ah oo loo bixinayo Krama. intaas ka dambe waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo ama aan uga faa'iideysto fursadan in la furi doono liisaska dadka u baahan diiwaangelintooda 15 bishan Febraayo wixii ka dambeeyo. Cismaan Cali Xalane, maamulaha koonfurta iyo bartamaha ee shirkadda Dahabshiil, ayaa sheegay in bangiga Dahabshiil uu diyaar u yahay inuu maalgeliyo qof kastoo rabo inuu maalgashado Marina Beach. marka waa fursad qaali ah oo u baahan in qof kasta oo ka fekeraya deegaan uu ka faa'iideysto. anoo ku hadlaya magaca bangiga Dahabshiil oo runtii lagu yaqaano maalgelinta dadweynaha oo bangigaas la yiraahdo bangiga dadweynaha People's Bank. waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo mujtamaca sharafta leh halkan isugu yimid iyo Soomaalida guud ahaan qof allaale iyo qofkii rabo meeshan inuu deegaan ka samaysto oo dego waxaa diyaar u ah bangiga Dahabshiil inuu maalgeliyo insha Allah taala. gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabayre ayaa hambalyeeyay shirkaddan, wuxuuna sheegay in qaab dhismeed cusub oo casri ah ay shirkaddan soo bandhigtay, wuxuuna wasaaradda ganacsiga ka codsaday in loo sameeyo canshuur dhaaf ah si loo dhiirigeliyo. waxaana la fadhiyay wasiirka ganacsiga oo runtii ah wasiir ku qaali ah ganacsatadeena. wasiir waxaan rabnaa ganacsatada Soomaaliya horumarka ay sameynayaan in gacan la siiyo. waxay codsanayaan maadaama ay maalgeliyaal ay yihiin inay helaan canshuur dhaaf oo ah waxa ay keeni doonaan loo sameeyo, in dhiirigelin loo sameeyo. waxay sameynayaan investor xooggan waaye, ajaanibtu markay noo timaystaba waa loo sameeyaa, in ganacsatadeena saas oo kaleeto loogu sameeyo maadaama ay maalgelin sameynayaan in canshuur dhaaf ay helaan. badeecado badan ay la imaan doonaan, qalab culus ay la imaan doonaan. waxaasoo dhan waxaan rabnaa marka in gacan laga siiyo. gudoomiyaha gobolka anaga waxaan rabaa aada ugu mahadsantahay dhagax dhigaaga iyo maanta barnaamijka meeshaan. waxaan rabnaa gudoomiye, ganacsatadaasi waxay isugu jiraan ganacsatadii dalka Soomaaliya oo dhan. gobolkaagay marti u yihiin. waxaan rabnaa gobolku inuu il gaaro ku fiiriyo maalgelinta ganacsatada ay sameynayso, in aad loo soo dhaweeyo. sida ganacsatadeenuna waxay diyaar u tahay ajaanibta Soomaaliya oo imaanaysa ka hor inay ayagu maalgeliyaan dalkeena. waxaan rabnaa dalka waxaan ugu yeeraynaa in ajnabi ay maalgashtaan, laakiin ka hor waxaan rabnaa inaan annagu inta is aamino aan annagu dalka maalgashano, oo aan sida aan Kenya iyo South Sudan iyo maxaan ku yiraahdaa South Africa iyo wadamada qaarkood oo Yurub aan u maalgashanay. waxaan rabnaa inaan kana isugu tagno si ajnabigu ay noogu daydaan oo annaga aan maalgelinta bilaawno. duqa Muqdisho Cumar Filish ayaa Marina Beach uga mahadceliyay mashruucan. maanta munaasabadan aan dhagax dhigga ah mataqaana Marina Beach State waxaan rajaynayaa ganacsatada hal abuurkan la timid inay arrintan dardar geliyaan. wax uun inta dhagax la dhigay meeshoodii iska jooga annaga sharaf dhacay noo tahay. maantay waa la dhagax dhigay
berrito ama saa dambe waa in shaqo la yaqaano ay bilaabato. haddii kale meeshaad juhdigaan ku bixisay berrito iyadoo mid kaawa ka jebinaya dhagax laga bixina arkaysaa. wasiirka ganacsiga Soomaaliya Cabdullaahi Cali Xasan ayaa sheegay in mashruucan uu ku soo aaday waqtigii loo baahnaa, wuxuuna sheegay in uu dalka u leeyahay ahmiyad ballaaran. waxaa weeye marka ugu dambeyn aad baan ugu faraxsanahay, aad ayaan idin soo dhaweynaynaa. xafladdaanu inay najax noqon doonto, barnaamijkan uu qiimo leeyahay, dhammaanteen markhaatiyaan ka nahay. sida la sheegay gabdhaha ayaa bilaabay, gabar ayaa hogaaminayso liin. runtii gabdhuhu waxay bilaabana barake leeyihiin. waxaa bilaabay oo ayaguna muxuu ahaa nala joogo duqowdii dhaqanka oo imaamyada iyo muxuu ahaa salaadiinta iyo ganacsatada halkan joogto, madaxda qaranka ayaa halkan joogto. shirkadda Marina Beach oo ah shirkad dhismaha horumarineed ayaa deegaankan waxay ka hirgelinaysaa xaafado cusub. waa degmada Kaaraan, waa deegaan xeebeed, waxaana maalgashanaya ganacsato Soomaaliyeed. xafladda dhagax dhigga maanta waxay kulmisay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka iyo dad kala duwan oo ay u badan yihiin ganacsato. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir, Dalsan TV, Muqdisho.